هلو حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكسن أصحابتي قالقة كنا سو دوادا جنالكي شكري لبا كتوس maanta fiidiina waxa uu ku saabsan yahay cuntadan fudud ee aan soo diyaariyay hamburger iyo waliba rootiga oo aan wada sameeyay iyo qaabkii aan u sameeyay ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago asaan ayuu noogu soo baxay macaantana aniga ayaa idin ka soo tijaabiyay oo aad ayuu u macaan yahay marka si aad u ogaatid qaabkii aan u diyaarinay fiidiyaha ilaa iyo dhamaad ka daawo haddii aadan dhibsanayna fiidiyaha like noo saar subscribe na noo dhig channelka haddana fiidiyaheenu ha noo bilowdo iyo qaabkii aan wax u diyaarinay waxaan sameysanaynaa marka hore burka halkaas waxaan ku soo shubay galaas caana oo diiran qaandada weyn oo waxaan ku soo shubay leebita ah 2 qaando sokor ah aan ku shubay wax yar oo milixana waa aan ku soo daray kale wax walba waa qiyaas waxaan ku soo daray blue band oo 4 qaado camal ah oo aan diyaariyay waxaan ku soo darsaday burkii 2 galaas oo bur ayaa ku soo darsaday waa aniga qiyaastayda ah kadibna waa aan soo qasaya waa isku soo noqonaynaa asxaabi waa kan si fiican u soo cajimay cajiin hadaa rabtid quruxdiisa waa inaa cajiintaa si fiican u cajinto waaye hadda marka weelkaas aan ku ridanaynaa bacaan afka ka saaraya waxaan dhigayaa meel diiran ayaa loogu talagalay isla markiisa uu kuugu soo qamiiro qoraxda ayaan dhigayaa qoraxdaan dhiganaynaa inta cajiinka uu noo sii qamiirayana shaqo kala sii qabsanaynaa waxaan halkan soo dhigtay hilib shiidan waaye waa nus kiilo hilib oo shiidan yaanyo waaye basal waaye basasha marka waxaan ka miirayaa biyaha sidoo kale waa barbarooni aan isna soo hoolay waxaan isna ka miirayaa dheecaanka sababtay tahay baalka waxaan ku soo hoolay karootada wuu ka qoyayaa cajiinka halkaana waa khudrawaadka iyo waxyaabaha aan ku carafsan lahayn dabcan waxa haysataa isticmaalaysa tuuna way ku jirtaa kana ku soo hoolay dhinaca yaryar dhinaca xogaa roona aniga ku soo hooshtay si fiican ayaa marka alaabtan isku qaseynaa waa isdhexgelinaynaa si fiican ayaan isku dhexgelinaynaa ka bacdina waxaan sameynaynaa qaabkan u diyaarinayno waxa u baahanahay furkaas fur caag waaye saa u jeedin nafaqo kareemkeeda waaye ma haysano laano baalka hamburgerka marka kana caaga isticmaalana waxa u baahan tahay caag xogaa laakiin hoos u godan bacdaas saarasa u jeedid ma u baahanaysid baalka lagu sameeynaya hamburgerka marka alaabtan si qurux badan kuugu soo saaraysa kaliya si fiican bacaan hoos ka mariyaysa u jeedin bac kale tan soo qaadanaya markaan si fiican iskula simo in kadib aan bacda kale haddana kor ka sii saaraya laakiin marka hore waa inaad si fiican u sintid oo ogaatid una waa kaasa maxaa uga baahan tahay bakeediirad oo lagu sameeyay hamburgerka saas soo noqonaya asaga dhan kuwaas horaan u sameeyay marka saasaan ku wadaynaa ilaa iyo dhamaadka hilibkeena waa nus kiilada ilaa 6 xabaa loogu talagalay markaa waa weyneynaysid laakiin ani inta ii noqotaan hadda fiirinaya saasa u saaranaysaa le si fiican ugu riixaysaa ilaa iyo koone si fiican u gaarsiinaysaa iskana hubi inaad geesaha si fiican burka iskaga dhadhajisid aad u fudud yahay maxaa la dhahaa sameyntiisa mana u baahneed mashiinkaas caag li raadi adil haduu xoogaa waasac yahay laakiin inuu hoos u godan yahay ayaa muhiim ah waa kaas hamburgerkan waxa sameysan hadda waa kan saana uu soo wada sameeyay kulligiis fridge kan gelinaya waxaan sugayaa muddo 15 daqiiqo si ama ilaa iyo 20 daqiiqo si uu si fiican isku qabsado ayaan sii gelinayaa fridge-ka waxaana diyaarsanayaa sooskii aan ku sameyn lahaa inta uu fridge-ka igu sii jiro waa kasbaarkas waa barbecue iyo waxaan haystaa hamburgerka iyo waxaan haystaa mayonnaise yogurt dabcan qaabab kala duwan loo sameeyaa qof walba si qaab ku jecel yahay u sameysana 2 qaando yogurt halkaas ku ritay waxaan sidoo kale ku riday 1 qaando mayonnaise-ka ina u badiso way fiican tahay laakiin anaga ma jeclin mayonnaise-ka khal aan ku daro wax yar cusbo adiga waa ku bedelan kartaa liin dhanaan waa aad ku bedelan kartaa عفوا البان هذا الكم جرو وحير وملح ku daray wax yar oo filfil ahna waa ku daray waxaan sidoo kale ku darayaa ketchup-kiina waa iga dhamaaday ketchup ilmo waxa ay joogo oo I love you ketchup waa geedkii barbecue waaye waliba waa ku yareey waa ku sii darayaa gadaal uga darayaa meel aan dhiganayna asagana
burkani waa uu noo soo qamiiray sida ujeedaan asxaabe shaqada dhan waa la isku dhex wadaa kala har ma lahan marka rootigeenaan jarjaranaynaa burka leebitada caanaha wax kasta waa qiyaas maybe adina family weyn tahay oo u baahan tahay inaad wax badan qasatid maybe ina family yar tahay oo u baahan tahay wax yar inaad qasatid marka mar walba qiyaastaada adiga laga rabaa inaad la socotid ma fahantay hadda waa aan jarjaranaynaa bur rootigeena in rootigi hamburgerka ku sameysan lahayn waaye ma u baahanaysidba inaa suuqa adiga hamburger ka soo gadatid gurigaaga ku diyaarsanaysaa waadna ku caloolsan tahay marka adiga waxa gacantaada ku samaysatay mar walba aad cuntid marka gabdha isbara gacanteena insha Allah inaa cuntadiina wax walba adiga gacanteena ku diyaarsateen marka iskuna dayna isleeg ekeysiin marka hadda waa kan saana u soo saarana saxankeena foornadan sii gelinaynaa si uu xogaa soo qamiiro ilaan hore lagama dubi karo ma ogtahay kadibna waxaan sii sameysanaynaa hamburgerkii hadda waa kan hamburgerkii waa uu noo qaboobay dabcan wuuna isqabsaday birtaanan dabka soo saartay intiisa badan waa dubay laakiin hadda intii adinka aan idin tusi lahaa unbaa dhiman saasaan hadda aan iskula saarnay saddexdan xabo waaba saddexda xabo u dambeysay intii kale hore soo deeyo maanta iska jimci iska aheyd waa la wada joogaa marka in qado oo isbishara la cuno waa lagu qasban yahay marka waa ka asxaabteeda halkaan waxa ay igu diyaarsan ansalaatadii yaanyadii iyo waliba jubnadii ay igu diyaarsan rootigi waa kan hada hoos u ka bislaaday waxaan kora u dhaweynayaa marka qaybta kora u soo daaraya wallahi ma ahla yaan ku dhahay ma ahla aad ma sha Allah u yahay hadana waa kana rootigeena saas noogu soo baxay bismillaah ma sha Allah qurux noqday waxaan rab korka inaa uga bibitiyay maxaa la dhahaa magaceeda ilaawa laakiin waa magaceedii aan garan waayebo marka alxamdulillah waa ka saas noogu soo baxay jileec soft qurux mujideen macaan wax kasta gacantaada kalsooni qabtaa ma sha Allah hadda markuu wax yar noo qaboobo waa aan jarjaranaynaa shaqadeena bilaabaneena waa kan wax walba halkaan diyaar noogu yihiin hadana shaqadeena ayaan qabsaneynaa bahal sooskiya mariyay kadibna dabcan waa taqaaniin qof walba sida loo sameeyo saasa u sameeynaa macaanta kaaga sii daran nadiifka kaaga sii daran laano adiga gacantaada ku sameysatay ilmihiina inaa bartiin waxa adinka gacantiina ku sameysatiin waaye ma sha Allah tabarakallah waa kasaa maxaa ka qurux badan macaan hadaa ka heshay oo ku cajabiya wuxuun ka faa'iiday channelkayga subscribe ka la dhaafin jibsigan wixii halkaas noogu diyaarsan yihiin waana ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgayga asxaabtaadana u sii share garee wabillahi tawfiiq nabadgelyo